أحمد وكو سلام يا لما وصل أمد الصوماليات عزلاد وزير كحيانك دلك إثيوبيا أحنا وزيرك أرمها دودة وأنا أحاي نك أوجود بناي ما كلا قتوا أبي أحمد دلك إثيوبيا أوجود بناي لو عداك السياسات يفضل مكانهم ووس عسري أحمد معنا رجع أقوي هنا يوم رجع خبير هذا وحيليهن علايس كهايست جودها يدلك ديان كيسي أم حارة وكسر جدي أو صح أو قط عصن أبي أو دجال كسعده يا أحمد وحيليهن لابد مكانون أيوة سوء عزلي وحاكل وكسر جسد أحمد إنه محي هذا كشقيه هشيسكي محي هذا سومالان يوم محي يو إثيوبيا iyo ka cagajiiday oo dhahay maadaama adduunka oo dhan ka soo horjeesaday Ethiopia maanta ma qaadi karto caalamka dhan meel indhaha caalamka ay ku hayaan ma qaadi kartay halaga joojiyo Abiy Ahmed oo lagu yaqaan qaras turnimo ayaa Ahmed oo ku adkeeyay dabadu ma kanana waa iscajiladaasna Abiy Ahmed uu ku bedel doonaa ayaa leeyahay waxa leeyahay wuxuu ku bedel doonaa ninka muqaabarad haasto oo orma ah booskiis ma buuxin doonaa iyo macnaha booska ninkaas soo cadaag ah ma buuxin karaa hadii laga qaado muqaabarad yahaan doona waa su'aal kale laakiin Ahmedow ninkaas waa iscasiri rug cadaas siyaasadeed wax badan xil ka soo hayay ilaa 2020kii oo Abiy Ahmed mooyeen raga inta kale raga ugu awood badanahay am xaarada ka soo jeedi oo am xaarada kale furay oo Abiy Ahmed inta meesku ay laakiin ugu dambeyn Ahmedow ninka waa iscasiri Ethiopia waxaan filaynaa shaqaaxad inay taawno واقرتي محا حلين كسو بيغا لسدي كرا نيكا انو سحسلو أحمدو waxaa ku soo beegay amxaaradii Abiy Ahmed waa kala tageen waa arkays had usbuuc cad soo dhafay Ahmedow in magaalada Jigjiga wixii ogaanta mudaharad ay ka dhacay oo Abiy Ahmed looga soo horjeeday oo amxaaradii wargeysada ugu weyn amxaarada kulli inay qorayaan in Abiy Ahmed qarasho turmo oo maxay oo ku socdo in Abiy Ahmed qarnimada Soomaaliya intuu farageliyo oo rabo inuu dalka dagaal u galiyo dawladda Soomaaliya maanta ay Soomaaliya iska ciin karnay naagta madaxweynaha ka ah Ethiopia ayaa fagaaro cad waxay ka tiri Ethiopia maanta Soomaaliya iska micin karto Abiy Ahmed wuxuu ku faanayaa maanta in Soomaaliya bad uu helaa gar iyo gardaro uu helaa waxa ku soo aadinaya Ahmedow deegaanka waxa tolkaada wuxuu qabo qab tolkaaga iyo kobaha dhax looga jira am xaari Abiy Ahmed waa kala tageen dibadii makan soo xil ku soo hayo way adkaatay tolkiis ayuu raacay waayahay inta haddaan kaga nimaadna arrinta ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka Ethiopia Saacisley سفيرك إثيوبيا وفدي سوماليا هذا الأفلاق دعيو سوماليا كويري خالي قرين بمان تكبحيي محا وقعك دولة الصومالية يوم الصومالية أحمدو نكا صورته ومقاني هاي ذاك وكم مقاني هاي حرمت ذلك إثيوبيا مقالة إليس أول أيو جوا ورئيسك وبحيانا وسيي وربعين تفانا ذلك إثيوبيا وسيي وواح قرنمada Soomaaliya meel looga dhacay ahayd Soomaaliya wuxuu yiri dal ma aha ayuu yiri Ahmedow waa dal wuxuu gumeyso awoor ayuu yiri Soomaaliya gumeyso ma awoorna ilaa iyo Nabi Ciise halkan ayaan degneen halku Ilaahay nagu awoor ayaan degneen 500 oo sano Ethiopia anaga waa isoo taaganahay iiga daran ninka saale ma aha Tigray ma aha Amxaar ma aha Orma waa cali shaqaste waa maxay ahayd waa maxay ahayd waa qolada Ruush u dagaalamayay Ilaahay maxay ahayd magacad maxay Wagner Group يا نكن مختار محاورة Wagner Group كفي على على شقاسة إثيوبيا أبالها دالة أحمدو عبد إلي ومدي ريك صح سوقي أيام ما أنت جال كجرا كوبي كورنا جال كجرا إثيوبيا أبال مالها بحنا عبد أوارنا جال يمال خسحن أي أوضن بس أيان ليه لكن ها دوار ورالي قلنا أيوب بحي وحول هاي أنا ساق مهليني معناها شعب صومالي إذا كان مرحبا وربعين صوماليا وين مرحبا ساس كمودين وحول كودوا دولة صوماليا إنك هذا هي إنه كسر نقطة وكممنوع عليه حدو ضلك كسر نقطة دولة صوماليا أرنتك واحد بالي أكتاي وانا لما هران إنه واحد أكتاي وانا بيكمل عن حدو إنك هذا كسر نقطة حدو ضلك كسر نقطة شعب صوماليا وحنا إلهي سفارة إثيوبيا أيان وبلنا عليه maxaa marka talaabada ku haboon oo laga qaadi karo maxay Ahmedow horta in loo jawaabo warqadii xale waxaan arkayay iyo leey warqadii ninkaas loogu jawaab lahay ay weli isku haysta in ninkaas Ethiopia safaaradeedii hadduu asaka tagan waxa joogaa rag diblomaasiyiin jooga safaarada Ethiopia weli waa shaqeynaysa waxa shaqeynaysa ninkaas inuu saar dhaho wuxuu ka arkay jaljaleeca Soomaalida nin qarnimada fiiri maxay nin ku soo duulay madax banaanida sovereignty ku sameey violation ku sameey macnaha ku sameey in diyaaradda Ethiopia Airways ay maanta $12 Soomaaliya ku soo Ahmedow
qaadka Ethiopia 50 milyan 40 milyan maalinka Ethiopia dalka kala xarato taas ayaa waxaan leeyahay nasiib darrada ugu weyneed waan leeyahay kana intuu nagu jeejasay oo umadeena waxaan aflagaaday shacabkeena iyo maxay dalkeena ayuu aflagaaday dalkeena hunguriga ka hay wuuna si aflagaadeynaya cali shaqaste waxaan leeyahay amxaarada noogu dhawaan leeyahay iyo tigraageena dilay ayaa noogu dhaw cali shaqastaha Soomaaliga ay meesha Abiy Ahmed oo fadhiyo ee dalkiyan hadaan dhinto dalkiigan oo u dhimaanay dal uu leeyahay ma jiro dameer lagu shaqaysanayo asagana iyo wuxuu yiri wiilasheen iyo gabdhayna Soomaaliya ay ku dhimanayaan wiil gabadh asaga leeyahay oo Soomaaliya ku dhimanay ma jirin Ethiopian ay Soomaaliya ku dhimanay ee darona uu dhimanay dameerahan magaalada joogo ayaa nooga qiimo badan 100% askari Ethiopian oo dhinta dameerahan noo qiimo waaye qodobkaas intaasan kaga gudbaynaa waxaan aadaynaa arrinta golaha ammaanka qaramada midoobay codsiga Soomaaliya u dirtay iyo Ethiopia iyadana warqad u qortay oo tiri arrinta arrin weyn maaha golaha ammaanka waxba yuusan ka fariisanin maxay kula tahay golaha ammaanka dhankeeba aadi doona Axmedow golaha ammaanka Ethiopia horta juga ku dhacday Soomaaliya warqad ay codsatay u dirtay golaha ammaanka qaramada midoobay in Soomaaliya dawladda Ethiopia ay dariska yihiin ilaahay uu daris ka dhigay Soomaaliya abuuray in sovereignty iyo maxay dalka Soomaaliya ay fargelisay oo mid ka mid ah hogaamiye macnaha hogaamiye gobolada Soomaaliya in ay heshiis la saxaatay heshiis dhaqaale ahaan international looga markii la aaday meel kasana adduunka macnaha waxa ogol Ethiopia warqada ka daba dirtay waxay tiri waxaas wax weyn ma aha anaga waxayna xalisana wax noocaas golaha ammaanka waxay soo fargelin xale golaha ammaanka warqada ka soo baxday in ay cawada berri sin Soomaha isniinta berri ayay golaha ammaanka qaramada firsanaan warqada Ethiopia qashin qofka lagu daray waxaana ka soo bixi doona saan rajeyno codsiga Soomaaliya fagaara walba oo Soomaaliya Ethiopia iska hormaan Ethiopia dhulkan la dhicin fagaara walba labadii qof oo meel wada isagtaba ya Ethiopia way cabaarinaysa bal iska daa maxay ahayd dawladda waxa iska daa ururada iyo wax walba meel kasta Ethiopia waan ku leegnay hashan ayaa noo hortaan leeyahay insha Allah hashan waxaan leeyahay Ethiopia dhulka ayaan la dhici doona had Ethiopia haday xoog isku dadana xoog waan u haynaa maanta shacabka Soomaaliyeed ma dagaalama jiray in ka soo ciidankan uu burburay shacabka Soomaaliyeed waxaan sheegay dalkeen inay difaacatan siyaasi Soomaali ah ha isku halayn aan leeyahay waa cali u shaqaysa waxaan leeyahay aan is aamino aan is bixiyo miran waa mooso bixiyo miran waa maxay ahayd waa khayaan wadanaada miran dalalka dibadda guri ay ku daleeyihiin wiilashooda hadii dalka dawladda shil ku galaan $20 milyan laga bixina qof $20 milyan laga bixin wili ma arag qofka ummadan waxa suuqay Axmedow dalka shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhiga inay ka kacaan dalkooda ay difaacdaan generation to generation way annaga awiyaasha waxaan soo gaartay dal madax banaan Ethiopia ay marka Soomaaliya maqsatayna ay ka dhacayso ayna soo gaarsiin annagana waa in ilmaheena aan gaarsiinaa dal Soomaaliya leeyahay oo xuduudihiisa ay xiran yihiin cid ku soo xadgudbi karto iyo cid kale asjir waa inaan dhaxdu u xirnaa dagaal ayaa lama huraan waa dagaal Abiy Ahmed wuu go'aansaday dawladda Yuruba ayaa dawada ka riixaan oo Faransiiska u qayb ka 10 markab ay u deeray Faransiiska maxay dalka Ethiopia 10 markab u deeray rag takadihi iyo wax dhan Imaaraadka Carabtana wuxuu bixinaya facility uu bixinaya marka dawladda Soomaaliya waxa leeyahay Imaaraadka Carabta dalka noo saara hadaa dal rabtaan Imaaraadka Carabta dalka noola saaran leeyahay wadanka dalka noola saaro sababtoo ah wuxuu noo soo raacay lugina marka hore maxaan ku dhahaynay maya dal walaalahan waa cadawga duu noo soo raacay go'aanka golaha ammaanka muxuu bedeli karaa Axmedow golaha ammaanka meesha adduunka looga talay waa hadaa isku raacaan meesha dal looga talay waa mid kale waxaan leeyahay golaha ammaanka Mareykan saameyn weyn ku leeyahay hadaa isku raacaan in Ethiopia la cambaarayo Mareykan awood badan buu helay waana ogtahay dawladda Soomaaliya Mareykan ka cadayba waa si xaq dalka hadal dawladda Mareykanka meesha waxay ka isagtay meesha ugu dibashaysay dhiida ugu dibashaysay intaas oo goor cambaarasay shirki ilaadu fadhiyo maxay ambassadorka maxay loo soo ergey loo soo magacaabay maxay arrimaha bariga Afrika loo soo magacaabay meel walba taan safaaradda magaalada Muqdisho ku taal waa arkay darada qoraalka soo qorayso Mareykanka waa diyaar uma aha Ethiopia inay cag soo dhigto ama ay bad ay lugta geliso amnigiisa oo qabaqaya Ethiopia dal gun waaye cid walba ay la kaashan kartaa bari kamaal Mareykan Ruuska la xiran kartaa culayskaas ku arkayso soo wajihi karaa saas awgeed Mareykanka BRICS ku biirto kale oo doolar la dagaalamayo annaga maanta waa in dawladdaas Mareykan